xeerkani waxa uu ka kooban yahay 17 qodob asal ahaanna wuxuu ku salaysan yahay xeer lambar 8 oo soo baxay 1961 xeer lambar 1 oo soo baxay 1962 xeer lambar 7 oo soo baxay 1986 xeer lambar 3 oo soo baxay 1987 xeerka guud ahaan wax mawduuci ah oo ballaaran oo guddida ay ka bedeshay ma jiro meelaha qaarkood oo ay ku qornayd maxkamadda rafcaanka ee gobollada marka laga hadlayo maadaama nidaamka garsoorka ee maamul goboleedyada ay ugu sarreyso maxkamadda sare ayaanu ku bedelin maxkamadda sare meelaha qaarkood oo ay ku qornayd wasiirka cadaaladda ee heer federaal waxaa lagu qoray wasiirka cadaaladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed waxyaalo noocaas ah oo la saxay way jiraan sharciga nootaayada qodobka labaad number 1 markii laga hadlaayo sharciyada qaab dhismeedka mihnada nootaayada dadweynaha iyo federaalka taas waa sax laakiin midda meesha ka hooseysa oo dhahaysa hubinta sareynta sharciga iyo xoojinta cadaaladda difaaca xuquuqda dadweynaha xorriyadda sida ku cad qodobka 34 ee dastuurka waxaan u arkaa meeshaas inaysan shaqo ku lahaan karin nootaayada oo laga saaro qodobka 34 qodobkan arday 12aad oo haday sheegeysay ka hadlay marka hore inuu yahay Soomaali intaasi kadib guddiga diyaarinta xeerka dhameystirka doorashooyinka qaranka oo maanta qayb ka ah kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xildhibaanada u qaybiyay 4 xeer ee doorashada ee loo saaray inay soo diyaariyaan xeerka guddiga golaha ay u qaybiyeen ayaa waxay kala yihiin matalaada gobolka Banaadir qoondada haweenka xeerka asteynta iyo dadajinta kuraasta baarlamaanka iyo habka nidaamka doorashada xubnaha golaha waqooyi ee loo yaqaan Somaliland gudoomiyaha guddiga xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow ayaa xildhibaanada ka hor aqriyay xeerkani wada tashiyo uu la yeelanayo qaybaha bulshada iyo hay'adaha aan looga maarmin fikirkooda inay ku biiriyaan diyaarinta xeerarka loo igmaday guddiga inkasta oo saameyn weyn ay ku yeelatay aafada safmarka ah ee cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan saameeyay guddiga waxa uu suurto gashay qabsoomidda kulamadii uu qorshaysnaa intii ugu mudnayd